بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذن سلام أحبابي سيديتين حالدين عافماتكينا جانا كان قداوني سين وحر أفشيال جانا العاوم هايدين وضاع عاو هايدين وضاع ما شاء الله تبارك الله مهر أم نكاح كذا وكسيسين ما شاء الله تبارك الله أم ملكع ما شاء الله سبحانه وتعالى انت قردون الله قولك وسهله intii guursid ilaahay waxaan leeyahay guurkooda gurnage gurigooda gurnage Naciima Cabdiqaadir ma sha Allah tabarakallah meherkeeda maanta loo fadhiyaa iyo Macaawiya ma sha Allah alxamdulillah shukr bil caalamiin ilaahay subhanahu wa ta'ala bash iyo barwaaqo nagu soo gaartay ayaa maanta u sugnaatay walaalihii isoo dhawaada maroon idinku sheeg janalka ka daawanaysi waxaan official janal hadaa nagu cusub tahay kan janalka subscribe inoo saar hadaa la joogto asxaabteena ka maqan tahayna waxaan idin leenahay gacmo furan ku soo dhawaada walaalaha qaaliga ah wixii waalid waa loo dhan yahay walaal iyo qaraabo wax ka maqan malaha ma sha Allah tabarakallah waa la isku imaaday alxamdulillah waa la wada dhan yahay haddana waxaan sugaynaa inuu meherkii dhaco ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noogu dhameeyo nabad iyo kheyr iyo bash iyo barwaaqo inuu ilaahay noogu dhameeyo walaalihiina soo oo maxaan dhahay noo imaaday ma sha Allah tabarakallah aan ku casuunin meeshan dad sharaf iyo karaamad naga mudan waaye intayna la joogaan waxaan jecelnahay wanaagii karaamad iyo sharaf ayagana aan ku dhameysano ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo marka ma sha Allah tabarakallah ducada isku heeno mar walbo waxaan jeclahay in aan duceysano walaalaha qaaliga ah ducadu waa cibaado ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhawaado ma sha Allah tabarakallah alxamdulillah mashquulka ahaaye mar rabo inaan idin soo gudbiyo laakiin waa mashquulay mashquulka adduunkuna iska badan yahay mahino marka alxamdulillah hada waa inuu bilaabanaysa insha Allah taala meherkii uu dhacay ma sha Allah tabarakallah wiilkina qaraabadu salaamaya alxamdulillah ilaahay waxaan idinka bariyay guurkiina gurigiina gurigagi ma sha Allah tabarakallah ku isku war Allah idinka dhig ubad kheyr qaba kala hela ilaahay subxaanahu wa tacaala bash iyo barwaaqo u korsan Allah idin sahlo inta muslimiin oo dhan iyo gabdhaha iyo wiilasha oo guurdoonkan ilaahay waxaan uga rajeynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala guur kheyr qabo Allah u sahlo haddana waxaa la cunayaa xalabayaashii macmacaankii wixii dhan waa la cunayaa insha Allah waa la iska qaxweysanayaa walaalaha qaaliga oo kasoo qayb galeen waxaa la rabaa inay ma sha Allah tabarakallah si wanaagsan noogu qaxweystaan ma sha Allah tabarakallah si qurux badan sharafteena ugu imaanaa sharaf la mid ah in aan kusoo dhaweyno alxamdulillah ilaahay hanoo maxaa la dhihi jir fududeeyo ma sahlana sheekada laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba fududeey karo ilaahaygi inuu soo fududeeyo allahana soo gaarsiiyay ma hadda u sugnaatay alxamdulillah caafimaad ku cuna bilcaafiya idin leeyahay caafimaad kheyrka bash iyo barwaaqo arooskiisku isku imaada haddana insha Allah allah naga dhigo ama nikaaxiisa insha Allah aroosku inuu dambeeya gurigalka laakiin hadeertaa waxa la socoto sheekada nikaaxa alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hadda u sugnaatay intaana soo gaarsiiyay ma sha Allah tabarakallah mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala loo mahad celiyo waa shay muhiim ah oo qaali ah marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajeynaynaa walaalaha qaaliga ah inaa maxaa la dhihi jiray u duceysiin walaalaha isguursaday ama kuwa guurdoonka mar walba u duceeya alxamdulillah qofka inuu duceysto waa wax shay muhiim ah alxamdulillah shukr bil caalamiin hadeertaana iska baashaala waa kana walaalihii qaraabadii iyo kulli cid dhan waa isku imaadeen wax maqan mal waa loo dhown yahay meesha ma sha Allah tabarakallah iska qaxweysta idin leeyahay yaahay idinkan waxaa idinku soo talagalay inaa maxaa la dhihi jiray nala daawataan sida quruxda badan ma sha Allah tabarakallah oo u dhacay meherkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha dambeeya ama maxaa la dhihi gabdhaha muslimaadka kalena waxaan ugu rajeynaynaa sidan quruxda badan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uga dhigo gurinaga iyo guur kheyr qabo ilaahay subxaanahu wa tacaala u sahlo inta guurdoon ah iyo inta wiil iyo gabar aba oo insha Allah oo guurdoon ah waxaan ilaahay uga rajeynaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala guur kheyr qabo u wada sahlo ma sha Allah tabarakallah guurka wax kheyr qabo waaye mustaqbal wanaagsan inay hesho wiil iyo gabarba ay helaan ma sha Allah tabarakallah wax loo baahan yahay marka alxamdulillah hadana bariiska la cuno ma sha Allah cashadii la soo dhigay ilaahay nicmadiisa waaye bil caafiya idin leeyahay sidoo kale idin cashadana ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ku cuntiina idinka rajeynayna insha Allah bash iyo barwaaqo ii soo dhawaada jananka hadaa ku cusubta subscribe ii saar hadaa ila joogtay asxaabteeda kamid tahan waxaan ku leeyahay mar walbo waxaan leeyahay insha Allah tacaala kuwii maxaan dhahay jiray oo wanaag iyo bash iyo barwaaqad iyo farxad ku dheehantahay iskugu imaa Allah naga dhigo waadna mahadsantihiin aad iyo aad idinku mahad celinayaa qaraawada dhan wax ka maqan maanta ma sha Allah tabarakallah amba caawo qaraawadu waa lagu wada dhan yahay waa la baashaalowaa alxamdulillah nabad ay lagu casheynowaa alxamdulillah shukr bil caalamiin oo iska ogtahay amuur haddii la qabano waa iska dhib badan tahay marka xoogaa yar ma aragtay alxamdulillah waa la isku adkeysa